وعن أو wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawanaysa iyo kuwa naga dhageystaba waa maalin kale iyo maxaa cusub maanta waxaan idinla joogaa London waxaanan idin leeyahay maxaa cusub dhammaantiinba aniga wax badan ayaa igu cusub weligay kumaan wareysan raajanabi ah inaan af Soomaali kula hadlo oo af Soomaali igula hadlo ayaa aad iyo aad qariib marka hore igu ahayd maxaa ka wanaagsan in ku nool Somaliland muddo dheer ilaa 2008 dhakhtar ka ah afka Soomaaliga aniga iga badiya runtii aad iyo aad cajiib u ah yaana waxba ku dheeraanin waa haween Dr. Anos Ashraf oo ku nool wadanka Somaliland gaar ahaan magaalada Boorame Dr. soo dhawow aadan ku salaamaya tahay walaal aad baan u faraxsanahay aad siiseen fursad aan kula kala qaybsado dareenkayga iyo fikirkayga aad iyo aad baad mahadsantiin thank you for having me aadan mahadsantahay waxa farxad noo ah Dr. Ashraf inaad markaasi af Soomaali ku hadlaysid marka hore intaanan gaadhin intaad ku noolayd Boorame barashadii afka Soomaaliga iyo adiga maxay idin kala qabsaday waxa way horta markaan imday dalka waxa 2008 aha shaqadeydana waxa way mar hadduu yahay caafimaad waxa kasaba inaad qofka u yimaado oo si fiican aad u fahanto marka waxa kasab ka dhigtay inaan u barto luqadda si aan bulshadan dhex galo oo aan isfahanno marka alxamdulillah muddo kooban markaan joogay waan u bartay waxaana keentay dadka soo dhaweyntooda iyo si u muujiyeen soo dhaweyn taas waxay keentay inaan noqdo qeyb ka mid ah bulshada way doctore marka hore bal sheekay adigu maxaad qabataa halkaad ku nooshahay bal sheekay marka hore okay sidaad markii hore ku sheegay magacayga waa Dr. Molasder waxaan ahay dentist waxaan deganahay magaalada Boorama markaste Boorama iyo Hargeysa baan u dhaxayaa because jaaliyadeena badan waxay degan tahay Hargeysa oo caasimada Somaliland anu shaqadayda gaarka markaa ka tago dhinaca kale waxaan shaqeeyaa ama waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Pakistan community-gayga ama jaaliyadda degan ee Somaliland iyagana waan la shaqeeyaa marka iyo inta wax ka dheer waxaan ahay Dean Faculty of Dentistry hormuud kulliyadda afka ilkaha jaamacadda culuumta caafimaadka khaaska ah ee jaamacadda Adal Boorama Somaliland way markaa dhakhtar baa tahay ilkaha ku takhasusay xaggaad marka hore ka timaado waxaan ka imid Pakistan waxaana imid 2008 bay ahayd Pakistan waa wadan ballaaran Dr. Ashraf Pakistan waa wadan ballaaran ma Lahore baad ka timid Islamabad mise tuulooyinka yaryar waxa weeyaan Lahore weeyaan magaaladeedu aha magaalo weyn aad u qurux badan magaalo weyn aad u qurux badan doctor marka adigu halkaasaad ku barbaartay wax ku baratay dawladda Somaliland baad timi Soomaha markii Somaliland imaraysay doctor sawir maxaad ka haysatay run ahaan anu ma yihi qof geographiga wax badan garanay laakiin markaa fursad helay anu saa jaamacadda markaa dhamaystay waxaan helay fursad oo aan shaqaysan karo waxa go'aankayga ugu horeysa waxay ahayd bal adigu maanta haddaad wax familygaaga ama qoyskaaga wax qaban karto bal ku dadaal markaan imanayay abtigayga dhulka Arab iyo meelahaas joogaa Qatar iyo Dubai iyo Saudi gu shaqeeya isaga buu garanayay wuxuu yidhi meesha tegayso meel wanaagsan maaha ticket return gooso kulle joogi meeshii waa soo noqonaysaa haye marka waxaan yidhi bal waan isla eegi doonaan tiga horta way markaan imiday viigii ugu horeysa ama maalmihii ugu horeysa markaan imiday sax waxa ii sababay inaan dhulkan joogo qofku markii ugu horeysa markuu arko horta farq badan baa u dhexeeya halka marka la eego dhaqaalaha ama marka la eego magaalooyinka iyo infrastructure-kii iyo waxyaabahaas sax anigu bilnasiib ilaahay baa mahadle waxaan u kulmay nin la yiraahdo Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi way waa kii weyn
oo caafimaad marka la eego iyo bulshada marka la eego oo Boorma khaasatan welibana Somaliland oo dhan marka la eego oo nin aad wanaagsan oo waalidkayga oo kale waxaan u ixtiraamaa sida waalidkayga family waxay soo dhaweeyeen sida qof mid ka mid ah familygooga ama qoyska ka mid ah waaya hataa heer waxay gaadheen waxay idhahdeen dee waad yar tahay hotel hataa kugu dejin mayno gurigaad joogaysa annagaa la joogaysaa waaya markaas soo dhaweynta diidan oo wanaagsan waxay keentay anu fikirkii returnka hataan haystay waan ka jarjaray waan kuri inayna fikir ku soo dhayn inaad noqonayso waaya markaa saasaan u joogay ilaa maantana abaalkiisa ma gudin karo wuxuu haysta sidii ilmihiisoo kale xaafadiisa ka mid ahay jaamacadda adal kuu sheegayna waa gudoomiyii jaamacaddana waa isaga wey marka jaamacaddana wuxuu baxay qeybta ilkaha waxaan u maamulaa diin ahaan marka aad baan u faraxsanahay alxamdulillah joogitaankayga doctore aad baad mahadsan tahay sharaxaadda dheer aad ka bixisay iyo gobonnimadaas iyo soo dhaweynta waa lagu yaqaan dadka Soomaaliyeed doctore bal iduu soo noqo joonigaad soo martay wiigii ugu horreeyay markaad Somaliland joogtay ee aad shabaatigii weyday ilaa shabaati lagama helo inta badan meelahaas aad cuntooyinkii aad weyday bal sawir ka sii dadka ku daawanaya bal run ahaan waqtigaas u wadkaa wiigii ugu horreysay unta markay imaado intii kaleet waxaan haystay ways la mid ah oo si soo dhaweyn fiican leh oo diirana oo markaste muujinayay ikhlaaq wanaagsan soo dhaweyn badan oo hadadaalay inaan idila u dareemin haddana laakiin untada markii timaado way yar kala duwanayd wiigii hore horta unto fiicanoo iyagu wax markastay keenaan ama meel baan u dhigi jiray ama waan u keen jiray si kale u dareemin laakiin markii dambe la kabsi bay noqotay because quest baan la degnaa guri baan joogay after that imika waxaa noqotay staple foodkayga caadiga bariis iyo baasta wax kasta baan unaa imika alxamdulillah way marka cuntadii markaad weyda jabaatigii weyday Pakistan waxa lagu yaqaanaa jabaati baa lagu yaqaanaa miyaanad dareemin inna ma dareentay war cuntada mashan waa maxay may wax badan saas maahan laakiin way kala duwanaashihii waxaa keentay mararka qaarkood inay adkaato dhadhanka cusub la kabsado laakiin wax badan uma dhaxeeyo dhadhanka markii dambe waa la kabsanaysaa soomaaliduna mid kale waxa ugu fiicanayd horta kama warwarayn meel waxaa joogay dad muslina waxay samaysanayaan horta waxaad u kalsooni qabtaa inay tahay wixii aad weligaad uni jirtay haba haatee dhadhan yar kala duwanaanshaheeda laakiin kalsoonida ugu weyn waxay ahayd meel waxaan u degnaa dad walaalaha oo islaamka ahaa kaas waxa keentay kalsooni badan oo cuntada la qabsado hadda marka cuntadii xalaasha ahayd baad la qabsatay markiiba kaas waxa keentay inaad dhadhankeeda bilaabo markii dambe la kabsi weeyaan oo caadi imika atay normal imika Pakistan markaan tigo waan u xiisaaba way wiiga wadankii aad timi xagaad ku soo degtay markaan wiiga ugu horreeyay sidaan ku sheegay anu maalmihii ugu horreysaan imiday waxaan u kulmay Dr. Abdurrahman iyo familyigiisa oo familygayga weeyaan maanta iyaga waxay oglaan waayeen bay inay hotel wax dejiyaan gurigooga qolkooga ga baneeyeen oo gurigoogan la joogay dhowr sano iyaga la joogay markii dambe markaan walaalkayga hataa waan u yeedhay imika familygayga oo dhan hooyo walaalo gabigooga waxay joogaan Somaliland markii dambeedoo guri gaar baan ka karaystay laakiin intii hore oo dhan dhowr sanado hore oo dhan waxaan la joogay qoyska Dr. Abdurrahman jaamacadii way markaad ka timaadid imika waxaad joogtay ilaa 2008 baad joogtay barashadii afka maqal iyo buug baad qaadatay oo waad baratay mise suuqan baad ka tawsatay may qalin iyo buug horta marna ma qaadan waxa intaad bulshadan dhex joogay iyo family-ga caawiyeen aruurta la ciyaari jiray kaas waxa keentay inaad degdeg u barto anu meelaha 6 bilood markaan joogay waan bilaabay hadalka haba haatee jajab laakiin waan yar hadli jiray muddo 6 bilood kadib markii dambe kalsooni dadka marka caynkaad Soomaaligan isku xixiga caynkaad ula qabsatay markaa ilaa way adag Soomaaliga ma adag yahay soo fuudi horta ma adka aniga ahaan horta markaan eego ma adka af Soomaaliga okay markii walaalada iyo hooyada yimaadeen ma ku adkaaday iyaga
may walaalahaygan ayagu way hadlaan. Walaalahayga mid ka midna wuxuu Somaliland suu qabsaday gabadh Soomaaliyeed buu guursaday alxamdulillah. Gabadh Somalilander buu guursaday. Gabadh reer Axmed oo reer Boorma. marka ma adkeen iyaga laftooda, laakiin qof walba si uu dadaalo weeyaan. dad badan baa jira oo Pakistaaniya oo ajaanib kale ah degan oo lugada fahmaya oo baran karaya. Qofku hadduu dadaalo baran karaya ilaa kulli xaal. Ma adka. way anu soo noqon waxaa jirta bulsho weyn baa jirta aad markaasi u tahay guddoomiye oo ah jaaliyadda markaasi Pakistan ee markaasi Somaliland. bal iyaga laftooda nooga waran. bulshadeeni dad badan oo boqolaal qof baa jooga oo ka shaqaysta ama dhakhtarnimo iyo macallimiin, dad khibradayaal ama xirfadayaal, dad ganacsata oo magaalooyinka kala duwan way degan yihiin. marka iyaga laftooda way kalsooni qabaan nabadda iyo horumarkeedana markaste la socda. bulshada Pakistan ama jaaliyadda guud ahaan marka la eego dadku way faraxsan yihiin, aadna way u dadaalaan waddanka horumarkiisa inay ka qayb qaadaan, farxaddeeda inay ka qayb qaadaan. mar walba waa community-ga aan u saan malaynayo waxaan ahay dadka ugu dhow oo mar walba garab taagan walaalaheena Somaliland. markasta walaalaheena waan garab taaganahay. marka dadkaas bulshadaasi waxay ka shaqeeyeen baa tiri waa dhakhaatiir inta badan waxay ka shaqeeyeen baan u malaynayaa dhismaha ka shaqeeyeen soo maaha. way jira dad xirfadayaal oo imika dad badan oo dhismay wax ka shaqeeya, warshadaha u soo beeyay Berbera imika la dhisayo DP World oo kale, projectyada waaweynna dad badan oo shaqaale badan oo wax ka keentaan imaaraadka. way jiraan dad badan markaad guud ahaan loo eego ama markaad tiro badan loo eego waxay ka shaqeeyaan qaybta dhismaha iyo fast food. Pakistaanta community-ga waddanka joogta intee waa number intee leeg? horta registered memberkeenu jaaliyadda waa around 800 weeyaan. 800 oo qof baa markaa degan. inay ka badnaadaan laga yaabaa. dad waxaa jirta oo muddo kooban imaada oo jaaliyadda member wax noqon oo iska noqda, ama ganacsiyaal oo ay imaadaan muddo yar oo kooban bay joogaan oo iska noqonayaan. dadkaas oo kale way badan yihiin. ama dadka Berbera iyo dhulka ka imaada shirkadaha ka shaqeeya iyagu shirkadahooga sharigooga lagama ogola inay ka soo baxaan shirkadoodii ama inay dadka kala dhex galaan. oo marka laga dhigo ilaa 800 qof bay gaadhis. 800 qof ee markaasi jaaliyadda ka midka ahi noloshooda ka waran sidee Somaliland markaa nolosha ula qabsadeen? mostly dadku noloshooda way qabsadeen. waxaa keenaysaa sababta ugu weyn waxa weeyaan waa relationkeena islaamka waa number 1. waayo markay helaan dad isku dhaqan ah oo dad isku diin ah waxay fududaanaysaa qofka joogitaankiisa ila kabsigiisa. marka kaa la eego dadka way fududa in la kabsado meeshan cuntooyinkeeda, dhaqankeeda, waxyaabaha waxa ugu muhiimsan ama waxa ugu weyn ay ka qayb qaadayso waa diinta weeyaan. diinta islaamka waxaa keenaysaa in dadku si degdeg isku dhex galaan, isfahamaan oo shaqaystaan. 800 dhalinyaro u badan yihiin mise waxay u badan yihiin dumar bay u badan yihiin? maxay u badan yihiin sidaba? dhalinyaro bay u badan yihiin. dumarkuna gaar ma imaadaan, mostly waxay imaadaan family-googa ama xaasas iyo waxa weeyaan, laakiin waxay u badan yihiin ilama dhalinyaraha ayay u yimaadaan. bulshadaasi markaasi kolley dee wanaagna waa laga helayaa, dhibaatana waa laga helayaa. dadka reer Somaliland waxyaalo mar baa jira ay isku dhacaan dadkay u shaqeeyaan. bal ka waran taas. way dhacdaa. annaga imika mar haddaan nahay guddoomiye jaaliyadda mar kasta waxaan u kulanaa waxyaabaha yar yar oo adduunka oo dhan marka la eego wanaag iyo xumaan meel walbaad ka helaysaa. mi jiraba adduun la yidhaahdo 100% uu yahay sax ama perfect. halkana way dhacaan, dadku way dhacaan oo dad isfahmi waaya, oo dad wax heshiis u galay ay dhammaystiri kari waayaan. marka annaga jaaliyadahan mar walba waxaan u dadaalnaa inaan xallino maslaxad iyo wada hadal. ilaahina mahadle alxamdulillah kiisaskeena maxkamad iyo jijiid ama galnaba mostly waxaan u dhamaynaa hadal iyo wanaag.
waxa ugu badan la isku qabsadaa waa maxay doctore waxa ugu badan la qabstaa horta marka la eego imika welibana xaaladahan maalmahan ay soo yar kordhay waxa weeyaan aniga ahaan fikirkayga ahaan waxa loo baahan yahay bulshada in la gaadhsiiyo inuu qofka ajnabiga dhulkaaga risiq u doontay uu kasab umu iman waxay keentay duruufaha labadii dhinac iyo waa qadar laa ilaahi halkii qofka risiqiisu koray uu gaadhi doonaa imika walaalaheena somalilanders waxaa jirta meel walba iyaguna degan yihiin dubay bakistan imaaraat maxaa la dhahdaa uk imika adigoo kale fadhida marka waxa weeyaan dadka dhalinyarada imika maskahooga waxaa ku jirtaa inay dadka dibadda ka imanaya maaha khaasatan bakistani guud ahaan jaalidaha kale hataa fikir yaroo ay soo dhacday maskahooga waxaa jirta inay moodaan inay dadka meesha imaday inay ka qaateen fursadihii iyaga ka faydaysan lahaa marka dowladuna mar walba way dadaalaysaa inay u samaysato wajaxada cusub oo ay furaan si dadka shaqo helaan qof walbana horta wixii ilaahay u koray buu qaadanaya taasi haddii waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta sare dhinaca dowladda ama awqaafta ama mas-uuliyiinta diinta iyo masaajida in la sheego horta risqigu ilaahay baa gacantiisa ku jirta qof walna risqiga nasiibkiisaan ahayn wax shilin dheeraad ma qaadan karaan qof kasta laakiin doctore marka ninka bakistaaniga ah ee bakistaan ka yimi uu wastaadkii qaato shaqadii wastaadka qaato ee aluminiumkii qaato daaqada uu xidhayay ee uu jibsinkii qaato ee uu ku shaqeeyay mararka qaarkood lacag ka yar kii muwaadinka ahaa maani markaasi xanaaqaynin way jirtaa kaasi waxaa loo baahan yahay sharci loo sameeyo oo mushaarka horta inaan la jarayn in level laga dhigo si ay qof kaste fursad lamid inuu heli karo markay noqdo qiimo jabnid waa kasab markaas dadku waxay jecel yihiin inay mar walba ka qaadaan qof gacantiisuna fiican yahay qiimuhu aanuu jaban yahay way jirtaa dhowr jeeroo dood iyo xarun galnay waxaa jirta shirkadaha dhismaha mostly iyagu shaqaalaha ajnabiga waxay keensadaan oo qaar anigay waramiyeen siday waramiyeen waxay dhahdeen walaal annagaa sababta ama waxay kalaftay inaan dad ajaaniba keenno dadka qaarkood ee bastaad iyo waxa ka shaqeeya waxaa dhiba waktiga ay shaqada saacada ku ilaalintooda adag iyo baxashi yarada kaadka la dhahdona way yar dhib badan tahay marka taas waxay keentaa inay yar dhinaca shaqada ay yar liitaan shirkaduna waxay jecel yihiin dadka soomaalida ee ku nool reer somaliland ku nool baad sheegaysaa markaasi inay ilaaliyaan waxyaalo badan baa markaa lagu doortay markaasi waa sidaa weeyaan hadday iyagu ku filnaadaan oo baahida loo baxnay hadday ku filayaan dee qofba shirkad ma jeclaa inay hawl visa iyo lacag iyo tigid iyo guri iyo waxa oo dhan bixiyaan iyagu waxa fudud qof muwaadin oo halkan joogaa inay shaqo siiyaan aniga ahaan haddaan ku sheego meel baan u dhisay boorama dhulka laga bilaabo ilaa tabaga saddexaad waxaa shaqeeyey wastaad soomaaliya ano hataa waa iga fududaa inaan u diro rag bakistani ama bangladesh iyo waxa laakiin zero ilaa dhamaystirkiisa waxaa shaqeeyey dad soomaali si ina u arkin isagu dadkiisii buu yeedhay ugu dambaynta ee finishinka yaryaree marmar la dhigi iyo ranjiga mooyaane laakiin dhis markii noqdo dee bulshadu way ogtahay zero laga bilaabo oo marka la qodayay ilaa dhamaystirkiisa wastaad soomaaliyun baa shaqeeyey iyo kuuli soomaaliyun baa shaqeeyey okay doctor marka waxaad leedahay Soomaalidu waxbay ku wanaagsan yihiin for example kale markay noqoto dhisitaanka guriga laakiin markay noqoto salaaxitaanka iyo rinjiga iyo chipsinka marka waxay u baahan tahay marka finishing waxay u baahan tahay marka khibrad u baahan tahay leedahay iyo dowlad ahaan marka la eego iyo policy ahaan national policy-ga in lagu daro waa in institutional furo oo dadka la tababaro waxyaabaha technical-ka ah waxbarashadu waa muhiim jaamacado badan baa jira oo shahaadooyin master iyo bachelor wax walba bixinaya laakiin waxay u jar tahay meel aad ka barto ama laxamad ha qaatee ama woodwork ha noqdo ama gypsum board ha noqdo dadku waxay daba bartaan oo dad la shaqeynaya laakiin waxaan sida fikirkayga waxa weeyaan haddii la furi lahaa dhowr institute oo fiican
halkii dad kale tababari lahaa oo gacantooda la dhisi lahaa waa muhiim wadanka markuu dhismayo oo dadka inay muwaadin shaqo helo waa aad u muhiim u tahay wayna noqonaysaa haddii la furo institutions or technical education vocational institutes kaas waxay caawin karayaan in dadka gacantooda oo wanaagsanaado oo way doctor way taan kan imaadno waa xagga shaqaalaha weeye shaqaalaha laba in kala qaybin karnaa waxna inay professional noqonaysa dhakhaatiirta oo kale waxyaalaha loo baahan yahay caafimaad laakiin waxyaalaha kalena in markaasi wadanka dadka jooga lagu daayo ku wanaagsanaan laakiin taas waa soo sheegtay dawladdu inay ka dhigto policy iyo shuruuciyo inay ka dhigto taas markaa dawladdu u daynayna doctor intii adigu aad joogtay aad markaa jaaliyadda Pakistan ee markaasi aad hogaaminaysay waxa ugu carqalada waxa ugu badan dhibaato xagga inga timaada waa maxay dadka bulshada la nooshihiin horta alxamdulillah dhibaatooyin badan ma jiraan waa nabad iyo horumarun baan aragnaa anu noloshayda marka la eego barhkeeda waxaan u dhamaystay Somaliland iyo wadankana guud ahaan marka la eego 1991 ilaa imika waa xaafka badan anu markhaati ka ahaa horumarkeeda nabadgelyadeeda iyo say u dadaalayeen annagana waxaan ka mid ahayn oo mar kaste dadaalaya oo wadankeen waxay noqotaa qofku markuu meel joogo waxay noqotaa gurigaagu labaad dadkii way kala duwan yihiin aniga ahaan waxaan u arkaa gurigayga labaado hataa wixii nolosheedaan shaqaysanayay isla wadankan dib u maalgashi baan u sameeyey maca Pakistan dhul yaxan lahaa waan u iibiyey sideen halkan u dhisto meel yaroo wanaagsan waxaan u dadaalaya inaan meeshaan ka dhigi doono state of the art clinic oo dental oo wax walba baahida bulshada u buuxin lahaa marka ma adiga ale marka dentalka ha meeshaasi ana adiga ale ha maca dhismaha adiga markaa leh ha wala way sharciga wadanku miyuu qof ajnabi dhul yeelan karaa sidaan anigu horta waxaan ka ibstay dhowr sano ka hor ilaa 10 sano ka hor baxid markaan ibstay marka ayar baan u waday dhisay imigu gobogobay maraya waan dhameystiri doonaa insha Allah dhawaan way marka ganacsiga adiga maanta ganacsigaagi weeye clinic-ii weeye adaa markaas u shaqeeya imise qof baa shaqaalaha waa tusaale waxa weeyaan ay dhiganta in meeshu yahay nabad iyo qofku kalsooni qaba inuu maalgashi uu samaysan karo reerkayga degan ciyaalkayga waxay u dhasheen waa Somaliland saddex namood oo tijaguna gurigoogii koobaad buu noqonaya mar dalkooga koobaad buu noqonaya halkii anigu yahay guriga la halkaagu imise carruur ku dhashay saddex carruur ku dhashay maasha Allah way shaqaalaha ku shaqeeya imika clinic-gaaga imisa Somalilander ah waxa la shaqeeyaa aniga aan ahayn intii kale waa wada Somalilander weeyaan iyo hal qof oo kale Pakistaniya labo Pakistani iyo intii kale waa Somali weeyaan alxamdulillah Somalilanders weeyaan waa imisa qof markaa waana afar weeyaan iyo marka waxa shaqo abuur baad bilowda ha alxamdulillah why not ek meesha joogtaanu sidaan ku sheegay hatta dhismaha markay noqday oo aanu og inay gacantoodu yar hooseeya oo waqti badan ay qaadaneen haddana waxaan u doortay in iyagu u sameeyaan si ayna noqon qof shacab ka baxsan oo magaalada ka baxsan oo inuu noqdo qof ka mid ah bulshada way dadka community-ga kale ee Pakistan tahay investment intee lag bayana ku sameeyay masaasoo kale u shaqaystaan mise waa shaqaale iyaguna may way jiraan dad badan oo aniga wanaagsan jira halka markay noqdo maalgashi dad waxa jirta million of dollars ay maalgashadaan oo fiinsada maxalada mostly waxa ka shaqeeyaan import iyo export ko kale kaarnamika insha Allah waxaan u dadaalanaa inaan keeno warshadaha oo ay furi lahayn in ease of doing business ka mar hatta kulan aan ka yeelnay wasaaradda maalgashiga waa in la fudeediyo dadka in wax attraction la sameeyo tusaale ahaan imika Turkey marka la eego qofku $200,000 markuu maalgashi sameeyo real estate waxa la siin doonaa waxa la siiyaa dhalasho ama dhalasho qofka passport iyo familygiisa qoyskiisa inuu qaadan karaa marka anu waxaan jeclaan lahaa inay dowladda xukuumadda Somaliland waxaan ka codsanayaa in booliisyadaas oo kale kordhiyaan oo attraction noqdo dadku maalgashi samaystaan ama qofku fursad u raadsanaya markuu ka eego $200,000 ku dhawo investment aad galisid maanta Turkey oo aad helayso maxaa la dhadaa dhalasho
وهلكن Somaliland markay noqoto ilaa milyan hadaad u galsid oo naad helen taasi waa difference weyn baa u dhaxeeya marka halkaas waxay u baahan tahay in la fiirsado in la fikro ease of doing business in policy wax laga bedelo way aan u soo noqono nolosha Boorame aad intaad deganay bal dadka aan weligood Boorama arag sawir ka sii waka saxoy Boorama waa magaaladeeda aan aad u jecelahay Boorama bulshadeeda marka la eego bulshada lamid oo Soomaali arkimaysid anigu Somaliland meel walba waan tagay Barbara Burco Sheekh maxaa Laasanood magaalooyin yar hataa tuulooyin hataa waan u tagay laakiin run ahaan reer Boorama iyo dadka kale isku mid maaha dadka reer Boorama waa soo dhaweyntoodii hadalkoogii aad u degan dad waxbarashadan u wanaagsan magaalada waxbarashada la raada meesha waxbarasho markay noqoto nabad markay noqoto soo dhaweyn markay noqoto intaas oo dhan waa ka helaysaa waa meel barwaaqo iyo biyo leh alxamdulillah